macallimiinta wax kaliya dugsi quraanada ku yaal magaalada Muqdisho ee ardayda ay wax baraan ayaa maanta banaanbaxay kaga cabanayaan burburin lagu hayo dugsi quraanada ay wax ku baranayeen waxay ka dhigeen degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir macallimiinta iyo ardayda ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan burburin lagu hayo dugsi quraanada oo maalmo la soo dhaafay furitaan lagu hayay degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood wadooyinka ku xirmay ay saameyn ku yeesheen waxaana ardayda iyo macallimiintu ay banaanbaxooda ka hor dhigeen xafiiska afayeenka Ahlus Sunnah wal Jamaa Sheikh Abdulqaadir Sheikh Maxamed Somow waxaana ka dalbadeen afayeenka Ahlus Sunnah inuu dowladda u gudbiyo cabashadooda diinta quraan digsiyaalka quraanka aan ku soo baranay wax kala ma haysan anagu waxa duminaya amar dowladda ka soo baxana la yiraahdo waxana dacwo kana amarkaas aan ka soo horjoognaa gudoomiyaha degmooyinka gudoomiyolkadana dhahay waana ku dhaqaaqeen waa la duushaba digsiyaalka waa la duushay inta la duushay aniga ma koobi karo ima qoran waxa kaloon dacwo kana dowladda hadda socota waxay sheegtay inay maartay nambarka ugu horeeya diinta islaamka ay tahay waxay hadda noo sheegeen afayeenka Ahlus Sunnah wal Jamaa Sheikh Abdulqaadir Sheikh Maxamed Somow asna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in wasaaradda diinta iyo awqaafta hore ay kaga hadleen in la burburin dugsi quraanada burburinta ku hayana laga dhaafo waxaana codsi u jeediyay madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha kaasi oo kaga dalbanay wax laga qabto burburinta lagu hayo dugsiyada quraanada waan arkay cabashadiina madaxweynaha fadhiyana waa gudbiyay hadda ka hor haddana waa gudbinaa mar labaad anigoo afayeenka golaha sare ummadinka Ahlus Sunnah wal Jamaa tixgelinaya ummadda Soomaaliya ee boqolkiiba muslima waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Saacid wasiirka arrimaha diinta iyo garsoorka mudane Abeen wasiirka arrimaha gudaha mudane Cabdikariim gubernatooraha magaalada Muqdisho mudane Tarsan waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan sida ay u dhaarteen saddexda deel oo ah dhaartoor waxay ku dhaarteen diinta iyo dalka iyo dadka inay u dadaalaan Ali Sheikh Maxamed Ali Yare TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho.